markana magaalada Hargeysa ganacsiga internetka wax looga iibsado iyo sida uu u shaqeeyo oo Hargeysa ku soo badanaya ayaa wariyaha BBC-da Sadiq Maxamed Burmad waxa uu nooga soo diray warbixintan. Somaliland dhalinyarada intooda badan waa bilaa amal waana sababta tahriibtoodu ay u badato. laakiin Saami oo ay u muuqato farabadnaanta fursadaha shaqo ee aan cidina ka faa'iideysan ayaa si dareen la yiri mararka qaar waxaan isdhaahdaa tolow yaa 10 qof ka dhiga. wiilkani waa aasaasaha suuqa online-ka wax lagaga iibsado ee Saami online. macmiilkiisuna waxa ay kala joogaan meelo badan oo Soomaalidu degto. horta hawl kastoo la bilaabay caqabadeed bay leedahay. caqabadahan waxa kamid ah dhaqaalihii lagu bilaabi lahaa iyo goobta la fadhiisan lahaa. maalinkaas aan bilaabay waxa jeebkayga ku jiray $25. waxa igu kaliftay caqabada ay haysatay inaan ku bilaabo salaan ama jaranjaro aan fadhiisto oo dadku dhex marayeen oo markii kolba dadku marayaan dhanka uga yarbay. maanta isla salaankii caqabadii maadaama ka soo gudubnay salaankii aan markaa ku soo bilownay isla dabaqu ku yaalay ay shirkadaydu ku leedahay xafiisyo. ganacsatada suuqa Saami wax ku iibiya maanta waxa ay qabaan inay ku faa'iideen nidaamkiisa cusub. dad aanan isgaari karaynin ama meheladii aan iman karaynin oo meel fog oo kala jooga ayaa alaabtii dalbanaya kadib Saami alaabtii buu qaadaya oo deliver gareynaya. marka waxa ka bedeshay waxa weeye suuqna way soo kordhisay meel alaabteedu aan gaari karayna oo aan gaari jirinna uu gaarsiiyay Saami online. halgankii ugu adkaa ee uu galay waxa uu ahaa sidii uu kalsoonida macmiilka iyo ganacsatada u kasban lahaa maadaama nidaamkiisa ganacsi yahay mid Soomaalida ku cusub. marba waxa naga haysatay dhibaato in hal dukaan uu nagu aaminaa alaabtiisa kaasoo mid kasta uu nagu xoojin jiray inaanu keeno damiin weyn. dukaamadaas maanta macaamiisheeda 200 gaariya waxa dhici jirtay inaanu ka barino وأني هذا معاملكم إذا كان مش قاعد مركز إذا كان معاملكم مش قاعد ودي بنوع صدره معاميش إذا مقالوا كل الصيام إن أورنج تي ورلعت إذا سيد كوا مننا بلاد نقدر عذان ما أنت واحد مرة ساعة هير أنا نقول وين أنت أونلاين كسوقنا ويب سايت كيا أي سوء بسنا ألعابه كون دور الله بالله كون دور بقول دور كلا جارية. إما كشغالة 10 qof ku dhow ayaa ka shaqeeya Saami online. balse bilowgii keligii ayaa ku koobnaa. marka qof macmiil ah uu online wax kaga iibsado isaga ayaa u geyn jiray oo u lugeyn jiray mararka qaarna bas u raaci jiray. laakiin imika waxa uu leeyahay gaadiid u gaaraya shaqaale la shaqeeya. haatan Saami waxaan isku raacaynaa mid ka mid ah macmiilkiisa oo online wax kaga iibsaday website-kiisa. alaabtii buu sida gurigu ugu geynayaa Saami namaride. macmiilkan aanu raacay iyo kuwa kale oo kamid ah macmiilkiisuba waxa ay la dhacsan yihiin inay adeegteen iyagoo aan albaabka dhaafin. Sadiq Maxamed Burmad, BBC, Hargeysa.